حاجة حلقة حرية القادنية هذا اللي جسوا وريو كراد علي جامع أو إنه مركز يسوي الدنيا موت فكر إن دبلو دقو مدني ماذا ومدو دور بلاد عمل لح بلاد كله دبلو دقو مركز هذا الكاس سيل لوجا قاعد كراد كه ما دام كراد بيشو كسر كذا مركز هراي هيد بيل مدني ماذا الصومالي كوديكن أو صوت قالنتي أو صوت لمتي يسقوها كراد هاي هذه الصوماليات Soomaalidu marka ay soo hiloobay oo labada qof ee Soomaaliyeed sarka ay marka aad soo jeclaayeen oo la isdoonayay in Soomaali la mideeyo marka waxa soo dhan ku gadaaman garaadka sidee uu hadalkan uga yimi ma se la oran karaa ama sax ma yahay hadalkaasi oo ma xaqiiqo ma yahay in garaadku hadalka yiri arrinkaas ku saabsan hadalka garaad cali wax badan baan in su'aashaas dadka gobolada waqooyi jooga laga shaafiyo wax badan baan doonayay inaan ka jawaabo waxaan anu jeclaan lahaana hadalkaas in iclaanka dadka Soomaalida gaar ahaan gobolada waqooyi jawaabta aan ka bixiyo in laga sii daayaan jecla waa ta waxa jirta carabta waxay tiraahdaa dadka ujeedooyinka hadalka kale hadal qof si uu yiri baa jiro oo si kale loo turjumi karo oo marka qof ba hadalka inuu sida u turjumo dantiisa gelisa kadibna hadalka buu fabrikaynaya markaas carabtu waxay tiraahdaa wa baayi'u kalimatul mufabraka baayi'u kalimatul mufabraka erayal la sameeyay dadka baac mushtara eraan garad cali hadda goosadka lagaga baac mushtara arrinka xog ma jiraan laakiin arrin kale oo dahalis taarabtu waxay tiraahdaa dahalis waxyaala hoos maraya oo aan sadxiga u soo bixin oo aan la jeclayn xataa hadda in sadxiga loo soo saaro baa hadalka sidoo khaldan uga baac mushtara aniga ma aha cid tiri hadalkaas oo xaqiiqada sheegaysa kuwii maalinta ee Soomaalidu waxna waana rasidin waxna waana document gareyn waxna waana qorin kuwii maalinta decision makerska ka ahaa hadalka garaad cali ee xisbiyada waqooyi ku wada jiray baa afkooda ka qirtay sida loo oranayo hadalka waa si qaldan haday sidaa tahay garaadku in xor la noqdo oo gumaysi gacantiisa lagu sii jiro Ingiriis lagu sii jiro marnaba kama suuroobin deegaanku ka soo jeedana waa deegaanka halganka soo galay oo hadii la ku rooyahay ku soo dagaalamay xorriyadda Ingiriiska dadkii xorriyadda Ingiriis in Ingiriis laga xorroobo keenayna waa dadkiisa weey garaadku marka dadka oranaya wuxuu yiri xorriyadii ba loo dhigo waa dambi bay ka galeen way qaldan yihiin absolutely way qaldan in sida loo yiraahdana waa ceeb weeyaan saddex xisbi baa jirtay saanidi USB iyo SNL iyo NUF saddexda xisbi dooday kala qabeen doodo SNL way kala jabnayd baataan niri NUF na aqlabiyad ma haysan SNL waxay ku kala jabnayd aan la midoono koonfur iyo aynan la midoobi NUF na waxay lahayd aynu 10 sano hadalka Ingiriiska maqal oo 10 sano oo Ingiriis soo jeediyay aynu xorriyadda koonfureed ka daba marno laakiin aan la midoono saasuu lahaa qolada NUF qolada USB na waxay lahayd ma hore aan ula midoono koonfurta labada garab had watan lahaa aqlabiyadii bay rajaxeen midnimada gobolada wax loo yaqaano waqooyi waxa rajaxday USB-da oo waxay raacdeen garabkii Suldaan Diiriye ee lahayd xorriyadda بدون شروط أنه كونفور كقلو مركا قربك قرحتشيس iyo gobolada dadka xisbiga USB ku jira waqti qaar baanan isaaqiska qora oo dadka dad aqlabiyada iyo qolada garxajis aqlabiyadu qoys soo noqonayaan baa waxay lahaayeen xorriyadda aynu si dhaxsale ula midowno aqlabiyadii nimankaas awti qolada NUF
iyo dad aan badnayn oo SNL garabkan aan garxajka ahayn oo beesha Muuse bixi ka soo jeeda waxay lahaayeen nimanka yeena la midoobin maxaan ku iraahdaa sideedaba qaarna waxay lahaayeen sideedu yeena la midoobin ma ka meerana wuxuu lahaa ma yaanu 10 sano dib u dhigno laakiin aan la midoobin markan akhiran annagu bisil fikirka ingiriiska socday arrimo badan oo xasaasi ah meesha yilay haddii Soomaalidu 10 sano ay kala dib dhici lahayd waxa dhici lahayd kala dalna noqon lahayd laba arrimood baa la isku hayay masiirka midnimada Soomaalidu su'aal bay ahayd masaalixduna su'aal bay ahayd masiirka ummadda Soomaalida qoladan aqlabiyadda ahi waxay rabeen hore in loo dedejiyo masaalixduna dhinac bay ahaydoo qoladan NUF waxa la qoladan USB da iyo SNL garabkan Suldaan Diiriye masaalixda iyaga isku waday masaalixda koonfur laga helayo iyaga isku waday maadaama ay midnimada loo ordayaan dawladda Ingiriiska markii dambe ay aragtay sida loo kala qaybsan yahay guddi bay dhistay waxay tiri saddexdiina xisbi qoloyba 5 soo saar si aad uga doodaan ma 10 sano dib u dhigasaan ma biduun shuruud iyo degdeg baad kula midoobaysaan ma dawlad gaar aad noqonaysaa markii ina cigaal oo ra'iisul wasaaraha dawladda ganacsiga loo magacaabay oo warkii u keenay oo governorku yiri wuxuu yiri guddi 15 sameeyay 3 mishana qoladii aqlabiyadda ahayd garxajka iyo dadka nan isaaqiska ah oo day ugu firfircoon yihiin dadkan gobolada ee bari oo gobolada bari wali waxa ka soo ifaya nacaybka Ingiriiska oo buuq baa ka jira oo waa dad daraawisha wali oo nacayb Ingiriisku afu ka saaran yahay oo nimanka daraawishta haba nool waxay yiraahdeen guddiba dhisan mayno waanu fahmanaa waanu nidrba Ingiriisna wareeriyo wax ka baqay galmeen guddiga dawladda Ingiriiska habeenkii uu governorkii ku celiyay iyo xisbiyadiiba warkii la soo wada gaarsiiyay waxay yiraahdeen qoladii SNL garabkii majority-ga ahaa waa niman Ingiriisku wata wayna ahayd niman Ingiriis wax ku shubanaya weeye niman kale guddi 15 hala sameeyo saddexda xisbiya ma aqbalano anagu guddiba ka qayb galmayno waxa weeye waan la codeynayaa in waqooyiga Soomaaliya biduun qayd oo shardi midnimada Soomaaliya lagu sameeyo Ingiriisku wuxuu masaas ahaa in cigaal wuxuu warkii ku celiyay qolada NUF oo markii horeba hal kursi heshay baa xagga masaalixda ugu rajo darayd macna inaan kursi ka heli karin koonfurta wax weyn ka heli karin markii horeba rajo iyadoo waqooyiga jooga dadka qaar kuraas isku wadiyay garaadku wuxuu yiri dad Soomaaliyeed oo gumaysiga ina kala haystay oo kala duwan yahay oo kala administration iyo siyaasad duwan yahay oo kala aragti duwan yahay yeynu isu tageynaa oo aynu kala xidhnayn waxaynu u baahanahay inaynu wax kala qoranno inagoo waqooyiga iyo inago iyo qolada kale oo koonfura inaynu wax kala qoranno wax dhexe ku heshiino waxaasi ay noqdaan wax inoo shaqeeyo oo mustaqbalka dhowna aynu ka faa'iidno oo ku wada noolaano sidaas uu garaadka hadalkiisu ahaa odayga in cigaal bay qolada NUF la shirtay xaaji Abdiwaraaba afkiisa ka yiri qof ka soo taariikhda akhriyana hadalku inuu sax yahay uu garanay mar allaale markii la yiraahdo guddiga ka qayb gali mayno hatta xiwaarka ka gali mayno hadaanu SNL qoladii Suldaan Diiriye iyo dadkii nan isaaqiska oo aqlabiyadii that's aqlabiya inha aqlabiya saaxiqa waxay yiraahdeen buu ku yiri an UFT3 ra'iisul wasaare mar hadii ay leeyihiin qoladan USB da nimankan ee bari ka yimid suufiyaasha ah iyo qolada nacaaysa wuxuu yiri dacaayada nafta noo keenay odayaasha uqaashaha iyo qolada NUF taha iyo wuxuu yiri niman suufiyaal oo bilaabay ahaayeen wuxuu yiri nafta noo keenay darqada hargeysan ka mar kar weyn Ingiriis baa laga soo urinayay war Ingiriis baa laga soo urinayay waxay yiraahdeen iyaga marka kuraasta isku wada hadaad cigaal tahay biduun qayd oo shardi oo golo koonfur inuu geey
koonfur haddaad cigaal tahay biduunu qayd oo shardi nooga si kuraas iyana ay u waayaan halkaasaa NUF go'aansatay garaad cali oo isku waday inuu wasiir arrimo dabadeed noqon karayo si loo ilaaliyo buugga aamil wasba ka qoran tahay inuu foreign minister isku waday garaad cali si markaa midnimada loo ilaaliyo هذا بيش نقول دجالنتي من نمدا إلى إن عبد الله حسن إلى دراويش هدنا حدود بري باور كأوجو بدن كويس عسكري جا يعني خسر وتشيل كرين ما دام قرادوها عدة سيدة كلية اللي في كلية كراعين يتهاي يعني مركز لقى هذا دولته هو اللي territorial integrity إسهايس الأولاد territorial integrity كان عدة كلية سوق كرتوا إسقى إنه قارن كسبنا إسهايسته بفهمي إن ماشي قولنا الدونس إن يفتو يأسنا الإنتر لقى أغلبية بطي إن يجا كراس واسين إياه بفهمي مركز يوري وريانهن مركو أركي إلا يري ورباشو إننا يوسف وحاول يسأل الحكومة على عادي أما كعناي أما كعيدي هذا الكأهو السير كأرمها الدبد إنه فورم ما يصير كسكوت الجراد علي بوق أمن سكران مركو شيكدي قولدي أسنا اللي سوق يسوي ونمكو عليهم بدون قيد وشرط بقولدي الناس راح يترون ونمكو وينا النجا ينا حمينا يعني بوق جراد علي وحول أنتوا هاللي واللح بلاد دمر كأمش أنا اللح بلاد باللوك هذه وحموك هذه هنا هذا الكلاسيك صباح كرسي وإسليه أتكون فرقة دفاعتي بوكيري ورملح بلاد مؤيركا هذه هنا إلهي بقى قرنيا كدبنا نبا قرارات كسو تورو إنه ها قولدي مؤامرة ودتي ننا يوسف وحده هيلن عاديو أما قراد علي سلطان ديريا يو نمان قولدا قرحتسكا يانا يسمى شو حكوين أنا بنت ما تشعلنا شيء إنه جروب كاها إيه إنه نين إسكا حماسة سنة هذا بلاد اللي سكوها يا أندريمن ما هان لا يا قراد وحكو صوت توري لا لو كسو توري شو وركا يا لا يا قراد مركا كلا قران ما إنه ها قولدي لهيد هذا العذاب متو oo yiri inba soo diideen maxad maanta anaga 6 bilood nooladahay markii la yiri guddiyaha sanadka diidayeen iyo inuu ahaaniman waxan fahansaneen dadka uu xorriyada isaga jibeysanaya midnimada inuu ahaa ma garanayo laakiin nin baa quraarad ku soo tuuray warka xaqiiqada ah waa saa wixii kale waa been waa maalin muran iyo makeek mihare waa maalin ilaa النار خشي من مالك مكتوب عندني ولا وارث عن مال خشي مكتوب عندني كلها وارث عن مال خشي من مالك